xasan al-haytham aabbaha sayniska ee quraanku ku dhiirigeliyey cilmi baarista. xasan al-haytham wuxuu ku dhashay magaalada Basra ee dalka Ciraaq xilligiisii ka mid ahayd meelaha cilmiga lagu barto sanadkii 965 miilaadiga. xasan wuxuu dhashay sanado badan oo xisaabta iyo falsafada islaamka shaqo badan laga qabtay. wuxuu dhashay xilliga lagu magacaabo xilligii dahabiga ahaa ee islaamka, markaas oo dowladdii islaamku ahayd xarunta dhexe ee cilmiga caalamka. waxaa magaalooyinka islaamka sida Baqdaad ku sugnaa aqoon-yahano ka kala socda caalamka sida Giriiga, Shiinaha, Hindiya, Faris oo hadda loo yaqaan Iiraan iyo meelo kale. waxaa la turjumay buugaag badan oo falsafada u badnaa, kuwaas oo ay qoreen mufakiriinta caalamka ee hore. afafka ugu badan ee wax laga soo turjumi jirayna waxaa ka mid ahaa Giriiga oo iyagu ku caan ahaa dhanka falsafada. waxaa xarun u ahaa cilmiga xilligaas magaalada Baqdaad oo ay ku tiilay maktabad baaxad weyn, iyo sidoo kale magaalada Basra ee uu xasan ku dhashay. sidaas darteedna wuxuu fursad u helay inuu wax ka barto aqoon-yahano heer caalami ah iyo dhul nabad ah, markaas oo ay ka taliso boqortooyadii Cabbaasiyiinta oo dhaxashay Umawiyiintii ka horeeyey. qormadan kuma soo koobi karno taariikhda saynisyahankan muslimka ahaa, balse waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah xilliyadii nolosha xasan al-haytham ugu xiisaha badnaa. saameyntiisii ugu horreysay waxay ahayd barashada diinta iyo u adeegidda bulshada. wakhtigaas bulshadu waxaa ka jiray fikrado badan oo iska soo horjeeda ku saabsan diinta. ugu dambayntii xasan u horseeday inuu hakiyo barashada diinta. taasi waxay keentay inuu u guntado barashada xisaabta iyo sayniska. waxa uu ka soo qabtay jago deegaanka Basra oo ku dhashay, waxa uuna magac ku yeeshay aqoontiisa xisaabta. xilligaas waxaa jiray fatahaado dhibaatooyin ku hayay bulshadii muslimka ahayd ee Masar oo ay ka taliso dowladdii Faatimiyiinta. xasan wuxuu markaas sheegay inuu wax ka qaban karo fatahaadda webiga Niil haddii fursad loo siiyo. waxaa lagu martiqaaday inuu la kulmo amiirkii dowladdii Faatimiyiinta al-Hakim si uu magaalada Aswaan uga hirgeliyo mashruuc biyo-xireen ah. si kastaba ha ahaatee, xasan ibnu al-haytham ayaa markii uu arkay baaxadda webiga iyo biyaha uu keeno, waxaa u soo baxday in uusan hirgelin karin mashruucaas. balse waxaa jira caqabad kale oo ahayd sidii uu ugu sheegi lahaa amiirkii xilligaas oo ahaa nin aad u adag, islamarkaana aan maya jawaab u qaadan in uusan mashruucaas hirgelin karin. maadaama aysan shareecada islaamku oggolayn in la maxkamadeeyo qof aysan maskaxdiisu saxnayn lana ciqaabi karin, wuxuu keenay fikrad ah in uu iswaalo. wuxuu matali qof aysan maskaxdiisu fiicnayn, waxaana taas awgeed la geeyey meel lagu ilaaliyo la mid ah waxa aynu hadda u naqaan xabsi guri. wuxuu halkaas ku jiray muddo qiyaastii 10 sano ah, balse wuxuu halkan ku samayn doonaa wax micno kale u yeeli doona sayniska, ilaa culummada sayniska qaar ka mid ah ay isaga ugu yeeraan aabbaha sayniska. muslimka aabbaha sayniska loogu yeero. xasan markan wuxuu ku jiraa qol mugdi ah oo habeen iyo maalin isku mid yihiin, wuxuuna halkaas ugu jiraa si naftiisa uusan dhibaato ugu geysan dadkana u nabadgeliyo, maadaama loo haysto inuu yahay qof waalan. balse kuma qasbana inuu daqiiqad kasta halkaas ku jiro, maadaama uusan ahayn qof dembiile ah. xasan wuxuu u fiirsaday ilayska cadceeda ee meelaha duleela qolkiisa ka soo galaya, wuxuuna qolkaas ku dhex darsay dabeecadda ilayska iyo aragga. wuxuu fahmay sida ay indhaheenu u turjumaan ilayska uguna beddelaan sawir iyo in maskaxdu tahay, halka araggu ka yimaad ee aysan indhaha ahayn. wuxuu qoray buugiisa lagu magacaabo buugga aragga, Book of Optics, wuxuuna sidaas ku noqday qofkii ugu horreeyey ee caddeeya waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in ilayskii dhabe toosan uu ku safri karo oo uusan leexan karin, qaabka araggu u shaqeeyo iyo alifidda kaamirada iyo shaqooyin kale oo badan. balse xasan waxaa u dheeraa waxyaabaha sayniska ee uu soo saaray inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee culummada saynisku ku tilmaaman inuu adeegsaday waxa loo yaqaan qaab cilmiyeedka scientific method. waa caddaynta xisaabeed iyo in si muuqata aad u soo bandhigto run ahaanshaha fikirkaaga cilmiyeed.
tani waxay ka kooban tahay sharaxaad, tijaabin iyo inaad ogolaato habka loo xaqiijinayo saxnaanshaha daraasadaada, waana sababta loogu yeero aabbaha sayniska. Si kastaba ha ahaatee, xasan waxa uu ku caanbaxay oraahyadiisa cilmi raadinta sida tan dhahaysa, xaqiiqa doonku ma aha qofka barta waxa ay qoreen dadkii ka horeeyey isaga, kadibna raaca hawadiisa kuna kalsoonaada waxa ay qoreen, balse waa kan ka shakiya waxa ay qoreen, su'aal geliya waxa uu ka soo ururiyey qoraalkooda, waa kan soo bandhiga doodihiisa iyo caddaymihiisa, ayuu yidhi Xasan al-Haytham. Haddii shaqada saynisyahanku ay tahay inuu runta raadiyo, haddaba waa inuu noqdaa cadowga wax walba uu akhriyo. Xasan al-Haytham. Quraanka ayaa igu dhiirigeliyey sayniska. Sida uu sheegay Halim Tamuri, barofesore dhiga jaamacadda Malaysiya ee Kebangsaan, daraasaadka hore ee ku salaysan waxyiga rabbaaniga ah ayaa noqday hagaha fulinta cilmi-baarayaasha Islaamka. Intaa waxaa dheer, nuxurka Quraanka iyo axaadiistu waxay noqdeen arrimo horumariya kuna dhiirigeliya culimada dhaqankii hore ee mufakiriinta Islaamka marka ay cilmi raadinayaan. Tani waxay ku dhacday xilligii Ibnu al-Haytham. Sanadihii waxbarashada hore ee Xasan intii uu yaraa, waxa uu ka bartay maadooyin la xiriira Quraanka iyo axaadiista masaajidada ku hareeraysan Basra oo u shaqayn jirtay xarunta aqoonta muslimiinta. Waxay taariikhyahanadu sheegaan inuu mid ka mid ah buugaagtiisa ku yidhi, waxaa ii dhiirigeliyey aayadda 17 ee suuratu Kaashiyah, miyaanay eegayn sida geela loo abuuray. Waxaa laga yaabaa inaad taleefan ka daawanayso ama ka akhrinayso qoraalkan, islamarkaana uu kaamiro leeyahay, waxaadse ogaataa inay tahay shaqadii Xasan al-Haytham ee buugiisa Ilayska iyo Aragga. Waxay taariikhyahanadu sheegaan inuu qoray in ka badan 90 buug, balse 52 oo kaliya lagu turjumay afka Laatiinka oo Carabiga iyo Giriigga kadib lagu turjumay wax badan oo ka mid ah cilmigii dowladihii Islaamku ay ururiyeen qarniyadii dhexe. Wuxuuna ku dhintay magaalada Qaahira ee dalka Masar sanadkii 1040 oo ku beegnayd sanadkii 432 ee tirsiga Hijriga, sidaasna wuxuu ku noolaa 74 sano.